bareer ay isaga dilo oo qoriga la isaga qabto shacabka Soomaaliyeed oo dil la isaga geysto si aysan u dhicin waxaan codsanayaa in askarigan lagu xukumo dil toogasho ah sida ugu dhaqsiyaha badan loo dilo. xasan juula shaakir waxa uu nolosha siijiyay cali taliya cariif oo ahaa bajaajla balcad uu ku dilo 10 January sanadan 2023 waxa uu leeyahay inaga ayaa isxigno oo xeer hoosaadkeena ku dhaqeeno wixii dhacay dadkan waa dad ehel wada qaraaba ninka qaraabana أنا أساس مو أغاني وحن وأقرنا ولا أهربنا مالكرنا ومايا مركا بل أنت قرابا واجوكتا وقرابا سوق لحم غنتها وحكوا صنايا محكمة تلفتله نقول كيس كان دب واحد نقولك maragada la keenay maxkamadda ayaa qiraya inaysan jirin wax muran ah oo marxuumka yeedeysanaha ka dhaxeeyay mootaa ka soo raaca meesha ani midka arfa ayaa ahaynay midkan asgariyan kale hada waxa la hayo aboostaya istaajeeda ونو استاجي ورعد ونسير رعاي من كان ملك البرد أوفدي هذا سنة قريو سوق بصي حبض برير عاد وحبض نوكين يلا ببارات متكر إلها كرو أدي مد كان مرحوم كل عاد حفيز كحيل لأن أنت إذا ما قلب كسيدايا محكمة كهر شيء يودا ما يسترمي كترجع لمدى الدلكة سيدا وقبا أحمد عبد الله كحجان كحيل عليها إذا ما قلب كسيدا هذا مدن قدومي مدن قرصنا المحكمة شرفت له بعدما سنة حسن جولة سب بريرة ودي المواد الصوماليات أو الميز أصلا شقتجي وحمالنا أيو على ذي أنكلا دحين دولة الربيع قعدت كو إلى لسه عدد ومدة الصوماليين كإلى لسه ماشي اللي قرر ودي لأسكري كان وعن محكمة كعد سنة يا إن سنة حسن جولة أي محكمة كنتو دل توجشه إسلامار كان محكمة أوفلسو سيد ونق سياح بدل سيأسم ودعين أسكري كلين وسشعب si bareer ay isaga dilo oo qoriga la isaga qabto shacabka Soomaaliyeed oo dil la isaga geysto si aysan u dhicin waxaan codsanayaa in askarigan lagu xukumo dil toogasho ah sida ugu dhaqsiyaha badan loo dilo qareenku waxa uu codsanayaa in maxkamaddu ay tixgeliso heshiiska reeraha eedeysanaha iyo marxuumka mudane gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh waxaa jiro heshiis u dhaxeeyo ehelada eedeysanaha iyo marxuumka heshiis u dhaxeeyo ayaa jiro xeer ay leeyihiin waa dad ehel ah waa dad walaalaha waa ka wada fadhiyaan heshiiskoodana maxkamadda hor keeni doona daqiiqada ay kaga niqaashayeen go'aankooda ay garsoorku ku qaateen banaanka maxdarka waxayna soo saartay maxkamadda xukunkan sida uu ku dhawaaqay gaashaale sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dood dheer kadib wada tashiga garsoorayaasha kadib markay arkeen qiraalka eedeysanay xasan juula shaakir gacal oo ahaa inuu isagu sababsaday marxuumka markay dhageysteen maraga oo sheegay in eedeysanaha uu si bareer ah u dilay marxuumka maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysanaha uu galay dambiga lagu soo eedeeyay oo ah in uu dil bareer ah u geystay marxuum cali taliya cariif waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cali taliya cariif maxkamadda ayaana ka soo saari doonto sida ugu dhaqsiyaha badan xukun jideeyaha la xiriira kiiskan iyo habraacidiisa wabillahi tawfiiq maxkamaddu waa xirantaa aabaha marxuum cali taliya cariif ayaa nala hadlay xukunka kadib maxkamadda sharafta lena waa ku faraxsanahay go'aanka ay soo jeedisay in gacan ku dhiil ninkii wax dilo la dilo oo maaragtay ay ku cumri qaataan dadka ka dambeeyo ay dhibaatada dilka ah ay ku badbaado ay soo jeedisay aad ugu faraxsanahay Abdulqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.